Assalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan sameynaa rooti oo laga sameeyay shukulaato iyo bacon nuts. Waxaa waaye looska sidaan u eg. Marka hadda inta miiska yaala loo baahan yahay daawasho wacan. Marka waxaad u baahan tahay nus kiilo bur, far iyo suul oo cusbo. Waxaad u baahan tahay butter, subag, xabad ukun, hal qaado oo khamiir, 4 qaado saliid, kan sunflower oilka. waxaad kaloo u baahan tahay hal bakeeri oo bar oo biyo ah oo qandac, 4 xabo qaado sonkor, baking powder iyo vanilla sugar. baking powderka waxaan ka isticmaalaa nuskeed, waxaa waaye 8 gram, kas xabadii waxaa waaye 16 gram. shukulaato 3 xabo oo waxay u dhigan tahay 300 gram. marka hadda waxaan sameynaa wax walba halkan ayaan ku ridaynaa. intaan isticmaalayo iyo waxaan isticmaalayo hoos ayaan kusoo qorayaa. waa kan waxaan ku qasay 15 daqiiqo. sidaan ayuu ekaaday, saas ayuu jileec u yahay. waa bur aad u dhegdheg badan, marka gacmaha haddaad ku qasaysid saliid gacmaha marso. markaad si fiican u dabooshid hal saac ayaad meel sii dhiganaysaa sidii u qamiiro. hal saac kadib sidaan ayuu ekaaday. halkan waxaad ka arkaysaa burka inaan kala qaybiyey. waxaan sameeyey mar walba haaf aan u jaray siday isku ekaadaan. marka dambena waxay noqdeen 12 xabo. rootigaada waan safnay. marka waxaa inoo haray inaan looska bacon nutska inaan si yaryar u jarjarno sidaan hadhow rootiga ku ridi karno. haddaad rabtid mashiinkaad isticmaali kartaa, khasama inaa mindi isticmaashid. aniga laakiin waxaan jeclaystay inaan mindiga isticmaalo. markaas gacantaan ku hayaa waana ilaalsan karaa. haddana subag ayaa dhalaalinaynaa sida burka dhexdeed ku marino. halkan waxaad ka arkaysaa marka ugu dambeyso aan burka laabayo. halkan waxaan ku bilaabay inaan burka kala bixiyo oo aan subag iyo bur mariyo. kadib aan laabay sidaad videoga xataa ka aragtid si triangle aan u laabay. kadib meesha weyn ayaan saaray loos iyo shukulaato. kadib marka ugu dambeysa laabay. marka 2 mar ayaan laabayaa. videoga laakiin waxaad ka arki kartaa waxaan ka wado.
rotigan waxaan marinaa ukun iyo caano. Ukunta waxaan ka isticmaalaa ukunta inta cad iyo hal qaado caano. foornada wuxuu ku jiraa 25 ilaa 30 daqiiqo 180 degrees. rootiga intuu foornada ku jiro ayaad shukulaatada sii dhalaalinaysaa sidaad rootiga ku sharaxdid. waa mahadsantihiin, waa inoo fiidiyowga dambe insha Allah.